بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شالي waxaynu ku jiray suldaankii uu horeeyay ee dawladda mamaaligta ama adoonta Ciisadin Aybak la oranayay dhibaatooyinkii ka hor yimiday oo ay dhibaatooyin sharci ka mid ahaayeen oo sidii islaantaba loo aqoonsan lahaa iyagaba isaga laftiisa aanin adoon sidoo maaragtay dadkii xorta ah dawladdu ugu noqon oo hogaaminay ay dhibaatada ka taagnayd waxa kale oo aan soo aragnay dhibaatooyinkii kaga yimid qoyskii ayuubiyiinta kuwii ka hadhay ee gaar ahaan shaam xukumayay iyo dhaxdhaxaadintii uu khaliifka Cabbaasiyiintu sameeyay ugu dambeyntii waxaan nidhi waxa ka hor timid dhibaato ah nimankii waaweynaa ee mamaaligta saraakiisha ciidanka hogaaminaya oo isaga u arkay markaa inuu yahay nin cunto dhadhamiya oo nahaayo saraakiisha sarsaraan ahayn oo iqdaayo kale inuu markaa taliyaha ciidamada ahaa kuwii ka hor yimid oo kamid ahaa kaana uu dilaan markaa oo shalay baan ka soo hadalay taasi markaa waxay keentay dilka uu iqdaayo Sayfuddin iqdaayo ahaa ninkii hogaamiyaha taliyaha ciidamada ugu weynaa uu dilay in taliyayaashii isaga ka hooseeyay iyo kuwii mamaalika al-bahriya ama mamaalika al-bahriya saalixiya loo oranayo dhanba inay ku abuurto cabsiina ku abuurto marka qaar fara badan wixii baxsan karayay inay baxsadaan kuwii la qabtayna la qabto la xidhxidho qaar fara badan oo kamid xabsiga u dhigo qaar fara badan in xooloogu loo wareego iyagii markaa inuu sidaas uga takhaluso marka qaar fara badan ayaa kamid yihiin waxay u tageen qolooyinkii ayuubiyiinta ahaa ee shaam ka talinayay oo ay ku dhiiri galiyeen in ay xukunkoodii la soo dhiciyaan oo ay taageerayaan ay raacayaan gaar ahaan Naasir Yuusuf oo ugu xoog badan ahaa marka ayuubiyiinta meesha joogtay ayay kuwii u tagay oo baybarisi ay kamid ahaayeen rag waaweyn oo saraakiisha ciidamada kamid ahaa ay ku dhiiri galiyeen inuu Masar la weeraro iyagana xukunkii aabayaashooda laga dhacay ay la soo celiyaan waxbuu ka ogolaaday isaguna arintaas oo uu aqbalay laakiin waxa ay u socon weyday khaliifkii Cabbaasiyiinta markana soo fargeliyay waxaana markaa uu Naasir dalbanayay xeebta Shaam oo Falastiin u badan xeebta Shaam markii la Falastiin u badan tahay in nimankan dhul iqdaaciyaad oo iyaga la siiyay markii hore baa inay ahayd dhulkii uu rabo inuu iyaga siiyo isagoo saas u lahaa iyaguna waxay lahayn xukunkii baan kugu celinaynaa markuu hadana khaliifkii Mustacsim soo kala dhaxgalay heshiiska uu dhexdooda dhigay hadana waxay noqotay inuu ninkan Naasirna eriyo nimanka mamaaligta ama adoonta dhulka uu Ciisadin Aybak u haystana sideeda inuu isagu maaragtay ula wareego isagu uu sidiisa ku haysto saasay hadana markaa heshiis dambe mar dambe lagu gaaray qaar iyagii kamid nimankan waxa uu carareen oo aad bay u sii fogaadeen ilaa dhulka Turkiga oo nimankii Salaajiqada Room loo dhan jiray bay u tageen halkaas ay u galeen oo iyaguna markaa ay magangeliyo weydiisteen qaar fara badan oo kamid ah cabsidii ay geysay intay dhaafeen nimankii ayuubiyiinta ahaa isaga laftiisu markaa ay bakma yareysanina kuwa laftooda warqadu ka daba diru ninka suldaanka Salaajiqada uu uga digay uu leeyahay nimankaas waa niman khaa'imiina waa niman beenaalayaal waa niman meel maarto wax lagu aaminaan lahayn iimaanna mala iska ilaali nimankaas hadhow way ku lugayn doonaan warqadaas argagaxbay markaa ama cabsi bay ku abuurtay ninkii suldaanka Salaajiqada magaalada Qooniya waa Istanbul bay yar u jirtaa marka Qooniyada wax badan uma jirto halkaas ayaga markaa magaalo madax u ahayd wuu yeedho wuxuu war idinkii iyo ustaadkiini maxaa idin ku dhacay marka ninka ugu weyn waxa la oran jiray Calaamuddin Sanjar baa la oran jiray oo iyaga markaa ninka watay kiiba ku yidhi oo sayidka iyo kanaad macalinka ku sheegaysaa ama ustaadka aad ku sheegaysaa waa kee waa ninka Masar haystay buu Ciisadin Aybak la yiraahdo hadduu warqadiisa kuugu sheegay buu inuu yahay
معلنka yagii been buu ku sheegay buu kan noogu weyna ma ahayn saraakiisha ciidamadeedana kamid ma ahayn cunta dhadhamiyu ahaa buu yiri annagaana u dhiibnay oo hogaanka wadanka u dhiibnay kadibna markii uu xukunkii iyo wixii isagu la wareegay buu ayuu isku kaya bedelay annaguna adigaanu ku door bidnay oo maaragtay aanu ku nimidnay waxaan rabnaa inaanu kula shaqeyno hadduu saa isagu ku sheegay waa been buu marka arintii isaga waa argagixi ama naxdintii gashay suldaanka salaajiqada way ka dajisay nimankiina wuxuu ka dhigtay saraakiisha ciidamadiisa ee la shaqeeya waxyaabaha hadii uu ciisadiin ka soo gudbay gurigiiba imka looga soo dhaxbaxay waa ka hortimid islaantiisi shalay waan sheegnay inay isku yar khilaafsanaayeen in talooyinkiisa ay qaadan weyday oo talooyinkiisa inuu isagu diiday oo uu qaadan waayay oo ku yiri xaaskayga baa tay gurigaaga ku eego siyaasadda dawladana faraha ka qaado ku yiri iyadoo xoogaa yar kala taagnidaas ay meesha ku jirto ayuu ciisadiin wuxuu bilaabay inuu guursado gabadh kale oo nin la yiraahdo Badruddin Lu'lu oo marka xaakim ka ahaa Mosul qoyga Ciraaq iyo gabadh ka doonay bas tiinada hinaasihi bay ku sii sareertay marka hawada naagtii oo kolka horeba la iskhilaafsanayo hadana la sii guursanayo waxa uu agtaa in laga takhalusayo Soomaa hinaasihi bay korka cirka ku sii sareertay shajarada dur marka waxa iskugu darsamay cadaawadii ay u qabtay iyo hawshan kale ee meesha ka bilaabantay iyadna wax kasto shirqool ay ka dhigi lahayd way bilowday hoos waxay ula xidhiidhay nin kasto xukunka oo damac ka hayay nimankii maaragtay saraakiisha ciidamada ee dhulka laga kala eriyay xataa kuwii xabsiga ku jiray bay la xidhiidhay oo tiri war ninkii waxyaabo fara iskula galay anaaba rabena ka takhalusay kaala ugu taageera ayay tiri iyadii halka ku bayna deynine waxay warqad u dirtay Naasir Yuusuf oo kan ayuu dawladaha yaryar ayuubiinta jira kii ugu xooga badnaa warqad u dirtay waxay tiri ninkii waxaan rabaa inaan ka takhallus aniga badilayaba kursiga masarna waa ku salaxaya ina guurso kaalay oo kursigiina la wareeg bay tiri Yuusuf wuxuu arkay arintii la dhowr jeer hore isku deynay marna ku guuleysan waa laba jeerna waa kii khaliifku soo kala dhaxgalay arintana shirqool buu arko naagta uu ninku hadda qabo ee waan dili leh ee adigu kaale kursiga fadhiiso ina guursadeetay loo aamini karaa bislo iska arintii uu iska fogeeyay saw qoraaladii markaa iyadu warqadii ay u direysay Naasir naasirna uu qaar ugu soo jawaabo ku lahaa anigu hadda arinta diyaar uma yihi iyo Badruddin Lu'lu gabadhiisa la guursanayo uu ogaaday ayba kumisna soo qorooxu ku xaaskaagu shirqoolkaas iyay ku jirtay oo salaadiinta ayuubiyiinta iyo ragii maaragtay ka baxsaday muxuu ahaa adoonta ama mamaaligtaba way la xidhiidhay marka inay ka takhallustay rabtaa wuu ogaaday markaas oo ma haysagiina in xaaskiisina ka takhallustan rabto qasrigii markaa weynaayo qasriga la oran jiray suldaanku ka guuray iyadii buu uga tagay wuxuu u guuray markaa qasri kale oo markaa meesha ka durugsan ilaaladiisina aad buu adkaystay isagu markii uu soo bandhigay dabcan markuu ninku madaxweyne yahay ama maaragtay boqor uu yahay waxyaabaha talooyinka uu sameeynaya inta badan xataa guurkaana ha noqotay saaxiibadii iyo dadka la tagayaasha iyo ka soo agdhow la tashadaa saraakiishii dawladda la tashaday qaar way yeeleen oo xidhadeen guurkaas uu fiican yahay iska guursay yiraahdeen kuwii markaa iyagu u yara janjeersana xagga nimanka la eriyay walina dawladii kamidka ahaa oo saraakiishii dawladuna ku jiraayna arinta way ka soo horjeestaan ka waxa ugu horeeyay nin la yiraahdo ayag dagtiin oo qoladii saalixiyada ama baxriyada wixii ka haray isagu markaa ugu madaxweynaa wuu diido wuxuu yiri maya ma jirto haweeneydii marxuumkeenii maaragtay ustaadkeena uu ka dhintay waxba la guursan maayo waa la qabto isagiiba xabsiga yaa loo kaxeeyay markii xabsiga lagu sii waday yaa qasrigan iyadoo ay deganeed hoostiisa la mariyay daaqada iyadna soo joogsatay haweeneydii shajarada durba soo joogsatay marka intuu madaxa u foorariyay uu sidaa yiri
ayuu afturka kula hadlay carabi kulama hadal carabiga ileen askarta wadana xataa way garanayaan kulleeyda askarta wadana turkiyiina way dhici kartaa laakiin afkoodii rasmiga ahaa ee isku afgaranayeen isaga gabadhaas ayuu kula hadlay wuxuu yiri sayidadiyay dambi aan sameeynay ma jiro buu markii aan dawladii u salaxnaan u dajinay ee arintii uu la wareegay ayuu doonay buu gabadh nin muusal haysta uu dhalay oo inuu guursado tii markii aan diidnay ee aanu ku niri haweeneyda sayidadiyada ah ee ustaadka yagii marxuumka Allah u naxariistay Saalax Ayuub uu qabay lala guursan maayo uu nagu qabsaday ninkiina uu isbedelay waxa aad arkaysuuna nagu sameeyay walaal xabsiga la igu sii wadaa buu leeyahay marka Masar yare gacanta ku haysatay bay sidaa tiri waan maqlay warka qolkii xabsiga isaga loogu tala galay lagu xiray ayuu wuxuu yiri in kaana qad habasana faqad qatalnaahu haduu isagu naxiray annana waan dilay buu macnaheedu way isfahmeen isaga iyo shajarada dur way isfahmeen oo sheekadaas ay qaadatay haddaba iyadu isaguna wuxuu bilaabay mar hadii uu ogaaday xaaskiisu inay rabto shirqool inay wado isna inuu yada ka takhaluso iyadna isagii bay u socotaa oo inay disho ay rabtaa labadoodu sidiiba la isku gaaday laakiin iyada qorshaheedii baa ka degdeg batay marka waa ka maalmana ka go'ay oo deeso qasrigiina uu ka guuray weynaaye dawladda looga talinayo wuxuu xeer military meel kale u galay warqad bay u dirtay aad u maarata qurux badan oo ereyo jacayl iyo waxyaabo maarata aad u macaan ku qoran yihiin warqadii baa soo jiidatay sultaankii waxa bal islaanta iska yar booqo markaa inuu booqdo ma hayna inuu iska fahmayay warqadani warqadaha kale la isku diray siyaasadda kama duwana oo warqad jacayl oo dhaw ma aha maxatar waa wadkiisii weey marka waxa sii diyaarisay ciidankii dili lahaa markuu qasriga soo galo ayay yadna sii diyaarisay marka uu soo galay waxa ku tiri malaa waad soo daashay oo maartay nin soo yar rafaaday baa tahay oo soo dhul fogna waad soo yar martay kulada labada qasrin saa uu kala fogay iska yar meero xamaamka marka inta biyaha diirimaadka iyo qabowga la soo dheelitiro iyo ubaxyo dhir kala ududgoon iyo wax saas oo ubaxu badan lagu sameyn jiray marka uu iska dhax fariistay barkadii oo wixii sidii iska meero shan dhalinyaro ay ugu tala gashay oo dagaalyahaniintii yar yara iyo ku tiri khalaas ka shaqeeyay ninka kolka waa hubkii uu iska dhigay dharkii uu iska dhigay uu isqaawiyay leeno dawaabnin waa nin barkad dhax jiifo meeranaya bay leeyahay halkii bay ku dileen qaw bay kaga siiyaan xamaamka dhexdeeda ku dileen bishii Abriil 1257 ama 600 jirada marle markay disayadu waxa istiri de jawigu khalaas adoo hadeed ku banaan yahay ninka doontaad keeni kartaa kadibna waxa doonto ayaad u yeedhin kartaa ilaa markii hore xukunka yadu qaadatay waa tii dadku dhan ay wada diideen haday ma kana qaadato sidoo kale bay noqon marka waa inay ninay xukumi karto ay keento meesh qolooyinkii mamaaligtuna markii ay ogaadeen dilkiisa saddex qolay kala noqdeen qolo mucisiye leeyahay isagu uu sameystay oo Sayfuddin Qudus hogaaminay mamaalig bahriya wixii ka haray ama saalixiyada wixii ka haray iyo qolo asrafiye leeyahay saddexdaas ay noqdeen marka asrafiyadii iyo bahriyadii saddex labada qolo dilkiisa ay taageereen waa sax bay yiraahdeen cid kale meesha la keenayba la keenay in la dilana uu ku fiicnaa bay yiraahdeen ninkaas qoladii muciziyada Sayfuddin Qudus hogaaminayana way diideen ma jirtay yiraahdeen waxaas mar hadii isagii la dilay wiilkiisa uu baa dhaxal kale bidhay wiilkiisa 15 jir ay keeneen meeshii qoladii bahriyadii asrafiyada wada socdaana nin la yiraahdo muxuu ahaa nin kale nin iyaga marka kuwii ugu waaweynaa saraakiishooda ugu waaweynaa ahaa iyagu meesha keeneen oo la yiraahdo Calaamuddin Sanjar ayaguna keeneen
arintii waxa diiday qoladii muciziyada ahayd baa dhamaan wixii oo dhan ba wada diiday nin la keeni kara meesha ma jirto ku yaro isagu dhalo cali la yiraahdo oo ay malikul mansuur u bixiyeen iyagu marka muciziyada sayfuddin qudus iyo la baxeen oo 15 jir ayay keeneen kaas aad noqonaya bay yiraahdeen boqor haweeneydii marka saddexda qolo oo saraakiishii waaweynada ciidamadu kala hoggaansanayaan sayis ku keeni kartaa kolba qolo u yaadha kolba qolo ay la hadashaa kii is yiraahdaa ay la hadashay ku tiraado warbal idinku nin iska soo doorto xukunka qaata nin waliba waxa u soo waranta ciidina ay ba ku xii ku dhacay oo kii amarkiisa markuu diiday isaga balaayadaas ay ku samaysay adigana bilo sidaasun lagu galbuna waliba is yiraahdaa meesha kursiga wuxuu noqday balaayo aan lagu hagaagaynin buu noqday qoladana kan yar bay wataan aakhirkii waxa ugu xoog roonaaday iyadii iyo oo iyadu de markaa ninka ay wadatay inay rabto ay keentay iyo sayfuddin qudus labadoodii ba isku yimid sayfuddin qudus baa ku tiri adiguba kursiga iska qaado suldaanka masarna noqo wuxuu ku yiri may inankiisii baa jooga inankiisa loo dhiibayaa inkastoo marka u horeysay taariikhyahanada qaarkood ay sheegayeen markay u soo bandhigtay wuxuu ku yiri may horta waxaan la soo tashanayaa saraakiisha ciidanka markaan iyaga talada soo weydiiyo kaligood anagu kaliye go'aan ma gaarnay wiil markaan soo wada tashano ayaan ku keenaynaa iyagii markay wada tashadeen waxay ku yiraahdeen waxay ku soo wada tashadeen warnaagtani waxay rabtaa sidii ay saaxiibkeen u gashay inay dadka inay u gasho cidii meesha timaada ninowna ha isku yeelin inta waxa kale wadaan sayfuddin qudus iyo qolyo kale inay ogaadaan cidii rasmi ahaan u dishay dilka ninkan ka dambeysay iyagu marka iyada kuma cadeynayaan aakhirkii markay taladii isla xumaatay waxay bilaabeen inay iyada adoomii ka agdhawaa iyo gabdhihii u shaqeynayay iyo wixii oo dhan bayna qabtaan oo ay wada ciqaabaan dhamaan oo yiraahdaan yaa dilay sultaankii kadibna ay sheegaan iyada amarka bixisay oo saasan ku dilay iyadii bay marka soo qabtaan xidheen oo yiraahdeen adiga dilay sultaankii adaa la haystaaba maxaad adigu dad oran adaa hebel xukunaa qabtay adiga ba dambiila dumar bay u dhiibeen markii dambana haweeney tan uu guursanayay marka loo keenay oo la arooska galay iyo iyada cidii u shaqeynayay oo dhigo kuwiba marka iyadii dilay qalcadii bay inta ka soo tuureen bay dhifeys ku dhex tuureen halkii bay maalmo dhaxooli jiray meedkeeda xataa horay ay u aasi waayeen kursiga wuxuu noqday marka mid sidaas ah nuuruddin calina meeshii bay keeneen qolooyinkii kalena waxay ku adkaysanayaan kuwa yowgi kale calamuddin sanjariyo qoladii ay keeneen qoladiina waa la qabtay iyagana ay qoladan ay keeneen xabsiga loo taxaabay kii yaraa iyo waxa isku soo haray ay wateen sayfuddin iyo qoladoodii baa ku soo haray bas ninkaas suldaana bay yiraahdeen waa 15 jir ilmo yar oo de marka aan waxba iska ahayn halkaas uu marka xidiga la yiraahdo maxaan ku yiraahdaa sayfuddin qudus oo ka soo baxaya oo isagu dayntii hore aad looma aqoonin saraakiisha aadka loo yaqaanay ma ahayn dagaalkii markii la galayay maxaan ku yiraahdaa Faransiiska la galayay saraakiisha yar yar buu ahaa laakiin wuxuu sargaal weyn noqday markii sayfuddin iqdaay markii la dilay wixii ka dambeeyay uu noqday oo suldaanku waa kii naa'ib ka dhigtay isna hadda isma wareerin ninka sayfuddin qudus wuxuu ahaa nin marka si loo eego aad u xigmad badan aqoon leh buu ahaa qoys boqortooyada marka horeba ka soo jeeday buu isagoo ahaa wax uun yani ka yar maqmaqli jiray walow isagoo yar in kastoo la adoonsado isagoo yar dhowr gacmood ay soo kala iibsadeen haddana wax uu soo ogaaday buu ahaa siyaasadda wax ka garanaya buu ahaa naa'ibnimadiisii buu iska daystay isagoo ku xigeenkii oo suldaanka u ahaa kii yaraa odaygu dhalay saaxiibkiisii hore la dileen wuxuu ka dhigay suldaan buu ka dhigay marka kan yari wuxuu isagu u yeeriye mooyaane waxa la wuxuu kala saari karayaa ma jirto kuwa askarta uu ilaaliyaasha uga dhigay iyo kuwa isaga cuntada u keenaya iyo saraakiisha ciidanka iyo sida dawladdu u kala qaybsantahay ninka gacanta ku haya waa sayfuddin qudus ayaa gacanta ku haya ka yari waa inuu mar walba yiraahdo waxa sayfuddin qudus la yimaado waa yahay waa inuu yiraahdo warqad qoraal inta uu keeno waa inuu isagoon aan akhriin waa inuu saxeexa hadii uu saxeexi waayo nimanka gacantooda way fududahay waa la iska dili karaa ka yarna
marka maalmihii dambu yar weydiiyo ku yiraahdaa war waa sideed waxun baa anigu ma horta suldaan ahayn ma awood balahayn ma suldaan matid awoodna marid bilada kursiga baad igu fadhidaa caadi buu u sheegay kursiga baad igu fadhidaa buu yiri awoodna marid waxa loo waxaan ku keenay dad yiri weydana adiga ku taala halka marka ay sheekadu marayso kaayarna laga dhigay suldaan laakiin de suldaanka ficiligi uu yahay Sayfuddin Qudus uu yahay ayaa waxa soo bilaabmay nimankii la oran jiray Tatar marka boorta Tatarka inta sheegay ninka Sayfuddin Qudus waxa la sheegaa magaciisa saxay waxa weeyaan Maxamuud bin Mamduud baa la yiraahdaa magaciisa dawladii Khosraamiyiinta ee ay Tatarka ama Mongoliyiintu baabi'iyeen suldaankii ugu dambeeyay oo la oran jiray Jalaaluddin bin Muhammad bin Khosraam la oranayay ayaa abti u ahaa walaashi baa dhashay marka dawladda markii la baabi'iyay Jalaaluddin kaasina muddo badan biska celiya Tatarka oo dhulkan Afghanistan iyo Pakistan iyo inta uu aad ugu la dagaalamay iyadoo dagaalkooduna waliba wuxuu iska ahaa isku barbardhac oo iyagoo kolba isku barbardhacoon oo kala isaga la jabiyo kala Tatarka la jabiyo iyo Genghis Khan dhintay kii ku xigay marka Genghis Khan dhaxlay baa markii dambe isaga soo jabiyay markii la baabiyay ee qoyskoodiina la baabiyay ayaa dadkii isaga iyo dadkii walaashi iyo wiilka yar oo abtiga u ahaa iyo dadkii ay qabsadeen ba kamid ahaayeen waxay ka iibiyeen beelaha Kurdiyiinta ay ka iibiyeen Kurdiyiintiina way sii iibiyeen oo Suuriya keeneen marka waxa la yiraahdaa Quduskani waa magac af Turki ah oo ah ay dadcuna hadii la fasiro kayra ku yaro dabeecad xun buu ahaa askarigii u soo dhawaada buu qaniina ama uu ku qayliyaa ama uu la dagaalamo mar walba marka kolkay ka quusteen bode wax yaro dhib badan oo qaylo badan oo dagaal badan u noqday ay dadcuna u bixiyeen ay dadcuna oo marka ilaa weynaantiisina iska ahaa ugu dambeyntii waxa iibsadeen ibn Zaim loo oran jiro marka madaxda Dimashq kamid ahaa ayaa iibsaday kaasa waxa la yiraahdaa maalin buu garaacay markaasuu aabaha nacla ku yaal ugu daray kiiray oo himbu kala joojin waayay cuntadii uu maalin dhan cuni waayay kolkaasuu nin u soo diray uu balsa sabo ninka balwaartay wax maxaa ka oysiinayo maxaa dhibaya balweydii kiiraabu aad u sabay aamusi way habeen iyo maalin oo ku war maxaa ka oysiinay ma garaac law garaac dooma kala ma ka fiican tahay soo kala garaac war ma garaac ka mooyee aabahay uu nacdalay baan ka xanaaqsanay buu aabahay iyo abtiyaashayna way ka fiicnaayeen isaga buu oo maxay ahaayeen buu adoon dhalay un baad gaal dhalay un baad aduna gaal un baad tahay gaalow ku dhalay maxaad ahayd buu warmaana ahayn anigu muslim baan ahay buu aabayna muslim buu ahaa oo Jalaaluddin bin Khosra bin Muhammad soo mataqaanid hada ninkaas aniga abtiyaha buu oo qoyskaas ka soo jeeda walaashayna waa heblaayo ma saasa ninkii buu sheegay war ninkani qoys boqortooyo ka soo jeeda kolkaasuu 500 diinaar siiyay uu hadeed sasabe uu yiraahdaa adoomaha hadeed madax marda amiir ka soo jeedo adoomaha ada madax wada raal ah oo saanu maan garanayno aabahana nacdali maayo reer gaala inaad ka soo jeedaan ku moodi hadeed raal ah sidii uu hadeed raal ku noqday oo ku ilaaliyay adoo waxyaabo iskaro iska waxa jira khuraafaad ay ku dardaraan waxa jira markan uu Ciisadin ay meesha haystay ayuu yeedha la yiraahdaa nin xidigiya waan xidigaha ka faaliya waxba uu yeedho kaas ku yiri wala waxay eegago xidigii buu eegay wuxuu ku yiri kulli adigu horta naag baa ku dilayso waad ka tagaysaa meesha kulli adiga naag baa ku dilayso waad ka tagaysaa meesha Tatarkana waxa jabin doona buu yiri ninka adiga ku dhaxli doono magacyadiisu maxaa la yiraahdaa sideed xaraf miyaa mise 5 xaraf oo wada bila dhibca Maxamuud ma dhibic buu leeyahay Mamduudna dhibic ma laha marka Maxamuud waa 5 xaraf Mamduud hadii lagu daro waa isla soo karo xaruf wada bila dhibca magaciisu inay ka kooban yihiin ayaa jabin doona laakiin de magaca loo yaqaan Qudus marka dadku ay u wada garanayaan in farabadan markii uu ku guuleystay inuu ka yar xukunkiisa sugo waxa kale taariikhnadu isku waafaqsan ninkaas inuu geesi ahaa aadna nin dabeecad wanaagsan oo ahaa nin go'aan adagna inuu ahaa nin diin lana inuu ahaa marka qofku dayntaas oo dhan isku darsado
waa hogaamiyihii loo baahnaa buu noqonayaa marka xukunkii ka yar markii uu sugay ayay saaxiibadii waxa uu soo jeediyay war mar hadduu tataarkii de Ciraaqna soo dhaafay dadkii muslimiintaana uu soo baabiyay hadda Falastiin oo agteenana uu joogo ilma yariina hogaamin maaya xukunka ilmaha yar ka qaad bay ku yiraahdeen may buu ilmaha yar xukunka ka qaad mayna ilmaha yar markuu waxba qaban kari waayo ma iska fariiso odhanaynaa intuu ina yeelayo waan isagu maandeynayna iska daayay buu taalafteedu waa xikmad laana madda xukunka waa hadii uu isagu xukunka ka wareejiyo waxa laga yaabaa in balaayooyin kale ay damcaan ay yiraahdaan adigu ma aadan lahayn meesh iyo Ayuubkii baa imanayay iyo wax kale imanayay in la yiraahdo isaga iyo kii yaraa markay sidaa uu Ciisadin ay baku dhalay sida dawladdu u wada haystaan bal waxaynu wax yar eegaynaa nimanka la yiraahdo tataarka hore way tayn u soo sheegnay nimanku musiibay ahaayeen luqadoodu waxa la yiri luqada hindida u yar egtahay sida ay hadalkeedu yahay oo dhinaca bay dajaarka yihiin hindidu ummad ballaaran bay ahaan jireen imanka ummadahan kale Indochina la yiraahdo ayaa soo koobo isdhex galeen xataa ummadahan Indochina laftooda way isdhaleen nasabahana Turki bay galaan oo iyaga Turkigu waa dad walaala wajiyadoodu way balbalaaran yihiin waxay kaga duwan yihiin dadka indha yarta wajigoodu ballaaran yahay laabtooduna way ballaaran tahay taba yar yarna way leeyihiin tabadoodu ma waaweynaa midabkooduna waa maarin buu dhow yahay asaan maarin u dhaweey socodkooda iyo ra'yiga iyo go'aan qaadashadooduna waa degdeg waasayda taariikhanadu ku safeynayaan marka waadiga joogay ummadaha wararkoodu iyaga way gaadhaan laakiin iyaga warkoodu ummadaha ma soo gaadho iyaga laba warkoodu kuma soo gaadhayo laakiin iyaga warkoodu ku soo gaadhaya wayna yartaa la yidhi inuu jaajus ku dhex qarsoomo maadaama ay muuqaalkiiba dadka ay ka wada duwan yihiin luqadoodina ay luqadii ummadaha kale ka duwan tahay cid ku dhex qarsoomi karta aad bay u adkaanaysaa marka ibnu Athiir iyo ibnu Kathiir iyo taariikhanadii waqtiga la mucaasaray waxay ku tilmaamayaan yani waxyaabo aynu la yaabno oo maaragtay aad u fara badan waa tataarkii marka kuwaas Mongoolka marka loo yimaado Mongoolka iyo Tataar waa laba ummadood oo walaala oo sida midlan Rabiica iyo Mudar laba qabiilo walaalo Carbeed bay ahaayeen oo midlan Quraysh oo kale reer Mudar bay ahayd reer Bani Hanafana reer Mudar bay ahaayeen sidaas oo kale isku ahaayeen marka laba beelood waxay ahaayeen dhulka maxaa la yiraahdaa oogada ah ee Mongolia gaar ahaan waqooyiga Saxaraha goobi la yiraahdo degan bay ahaayeen wuxuu fidsan yahay marka dhulkaasi bartamaha Asia waqooyiga Siberia galbeedka Tibet bariga Manchuria waxa weeye qaybta Jaynaha bariga ee Jaynaha la yiraahdo galbeedkiisa la yiraahdo iyo Turkistan barigeeda waxa kale u dhaxeeyaan buuraleyda la yiraahdo Taawo oo galbeedka ka xigta iyo buuraha la yiraahdo Khanjaan oo bariga ka xigta yani waa dhul qorfa oo Saxara ah oo aad u adag bay labada beelood wada deganaayeen xoolo dhaqatana way ahaayeen xoolo ay dhaqanayeen laba nooc bay ahaayeen farda iyo ari bay ahaayeen marka caanaha iyo hilibka xayawaankaas ku noolaayeen meeshu waa meel jiilaal 6 biloodna waxa weeye waa baraf qabow oo dhulku wada noqonayo maaragtay barafaadu qabow noqonayo 6 biloodna cagaar iyo waxba soo baxayo 6 bilood ba xoolahan ay haystaan xoolo kale ma waa farda iyo intanuuna ay daajistaan inta kale waa in guryaha lagu wada noolaado 6 biloodna waa in guryaha la wada deganaado caanaha iyo hilibka xoolahaasna waa la wada cunaa cunto kale ma jirto muddo badan bay markaa labada beelood nolol iska degan oo iska xasiloon ku wada noolaayeen laakiin aakhirkii way iskhilaafeen labadii beelood dagaal aad u xun baa dhaxmaray marka mar waxa la baabiyay Tataarkii marna waxa la baabiyay kuwii Mongoolka loo bixiyay markii dambe waxa marka ay iyadoo oo ay marka kuwii Mongoolka xoog roon yihiin laakiin beelii kalena ay dhulka kale ku kala baahayeen Tataarka soo jeeday laakiin intooda badan la adoonsado ayaa taariikhdu waxay soo gaadhay 550kii ama 1200 ee miilaadiga halka marka ay soo gaadhay ayaa waxa dhashay nin la yiraahdo Temujin oo magaca caankeena markii dambe taariikhda loogu bartay Genghis Khan la yiraahdo
oo qabaa'ilkii mideeyay wuxuu ku dhashay markaa isagu meel la yiraahdo doolon oo imika ku taala Ruushka qaybta Ruushka ku taala magaciisa markaa waa Genghis Khan bin Yosakai bin Bahatir bin Toman bin Totil Khan bayaan magaciisa oo intaas taabtirsiinta inta kale laga garanayo marka qoysku waxay ahaan jireen qoys had iyo jeer suldaama ama reerka u taliya ayay ahaan jireen kan marka magaca Temujin Genghis Khan la bixiyay Temujin la oran jiray markii daadiisu 13 jir ahayd ayaa abiy la dilay oo Yosakai abiy la oranay waa 600 iyo 563 ama 1100 iyo dhowr iyo 70 qabiiladiisuna marka way yarayd oo kala qabaylka Mongoliyiinta ama Tataarka loo eego qabiilo yar bay ahayd de odaygii reerka hogaaminaya mar haduu dhinta ki yara daacadiisi baa laga baxay isagina waa 13 jir qabiiladii oo dhan way ka baxday waa la iskaga wada tagay isaga iyo hooyadii iyo laba wiil ay walaalayihiin marka mid mataanay ahaayeen baa la yiraahdaa ayay meel ku wada noolaayeen nolol aad u adag oo kalluun yar una hela xataa xoolihii baa dhaafay qoyskii yara ay ka soo jeedeen kalluun yar iyo waxun bay meelaha u gaarsan jireen 17 jir markuu gaaray Temujin ayuu nin maskax badan oo geesina uu ahaa siyaasad wanaagsan oo ahaa wuxuu ku guuleystay qabaa'ilkii waaweynaa ee beelahooga kala faracyadoodii ag deganaa inuu qaar kood saameeyo oo xukunkii aabihii uu lahaa isaga loo caleemo saaro kadib kolkay qabaa'ilkii qaar yeeleen qaarna diideen kuwii diiday dagaal buu dagaalka khalaas kaga dhigay waa ku yaro 17 jir sidaas marka sheekada u bilaabay waa uu waday isaga marka waxa jiri jirtay qabiiladoodan tirada yar qabiilo kale weyn oo Karaayit la yiraahdo qabiilo aad u weyn oo awood badan ahayd oo marka aabihii uu noolaa uu yaashay markay noolaayeen bahad iyo jeer qabiilada weyn ba ilaalin jirtay qabiiladii weyneed uu la tagay markuu waxoogaa dhiig galay uu sameeyo dad badan laayay ayuu qabiiladii weyneed ku noqday yiri warda saasan sameeyay xukunkii aabayna war raba idinkana reerkayga ilaalin jira kaalo ilaaliya ciidankoodii faraha badnaa iyaguna ku dareen cid walba oo qabiiladana marka badankeedu kristaan bayd baa leeyahay sabab badan tahay laakiin tan uu ka soo jeeday waa awaan diin ma laha marka wuxuu sameeyay kolkay qabiilada weyne ogolaatay qabaa'ilkii kale qaar kood xeelad buu ku keenaa qaarna xoog buu ku keenaa isku wada keenay dadkii oo dhan taariikhdu markay soo gaadhay 603 hijrada ama 1206 qabaa'ilkii badankoodii uu isku wada keensaday shir weyn oo uu qabtay bes hal caleema saaray buu markaa aniga waa la caleema saaray de magacaada uu rabto la baxbaa leedo Genghis Khan buu la baxay boqorkii caalamku markaa la baxay ama boqorkii bani aadamka marka wuxuu meel kasto bani aadam joogo hal boqorta hal awood un baa jirtay buu aakhiriya duunba halka awood ma sheegay waxay tahay in Ilaahay tahay in cid kale tahay isagu ma sheegay hal awood un baa jirtay buu dhulkana waa inay awood kaliya uu ka jirtaa buu awooddaas waa aniga buu cid kale ma waxa la wixii naga hor yimaado waan baabiinaynaa awaanin buu markaa dajiyay oo boog yaasiq leeyahay ama yaasa leeyahay ama siyaasa leeyahay ku qoray boog baa soo magacyada taariikhda ku ay ninbasa u qoreen booga wax diimu waxyaabo fara badan ka soo qaatay diinta islaamka masiixiyada yahuuda buudiyada qaarna isaga jeebkiisa kaga darsaday waxyaabaha uu markaa ku qorqoray boogaas ee uu yiri waa mabaadiida ay dawladda Mongolia ku dhaqmayso waxa kamid ah inuu ka yari ka weyn ixtiraamo nidaam military oo aad u adagna uu dajiyo oo ay kamid tahay in dhalaan in la adeeco saraakiish bas qofka duu sargaaliya waa qofka askariga in dhalaan waa inuu adeeco qofka ka sareeya waa inuu ixtiraamo waxa kale uu ku daray booga ciqaabada adag de waxyaabo maartay inagoo dadka maalayaan aan arkayno iyo isagu ciqaab ka wada dhigay oo qofka lagu dilayo ciqaabahaas waxa kamid ah oo booga yaasiga ama yaasiqa ku qoray shaqadii loo dhiibay askarigii ka gaabiya ama sargaalkii ka gaabiya خلاص ciqaab baa lagu suuxaynaya qofkii sinaysta waa la dilayaa marka ma kala laha qof guursaday iyo qof dhalinyaro marba haduu qofku sinaysto waa la dilayaa
mooyde sinada si ay u qanaada dumarka moogtahay koox bay ugu tagi jireen iyagu laakiin sinadu markaas ay tahay ma garanayade qofkii been sheega ama sixir sameeya ama basaasnimo la yimaada ama laba wada doodaya iyagoon u ogolaanin iska dhaxgala laba nin baa doodaya ama weysaystaan oo dagaalamayaan iyagoon ku ogolaan qofkii dhaxgalay waa la dilay isagana qofkii baayac mushtar loo dhiibo ganacsi loo dhiibo ee ganacsiga ku khasaara waa la dilay qofkii qof la soo qabtay oo maxbuusa oo qol ay haysato ama dawladdu ay xiratay cunto siiya iyagoon iyagu ogolaan ama dhar siiya waa la dilay qofkii arka adoon baxsanaya ama maxbuus la qabtay oo baxsanaya ee soo celin waayay cidii ka baxsaday soo celin waayay waa la dilay qofkii xayawaan gowraca sida muslimiinta u gowraca waa la gowraci isagana kan laba dilay waa la gowracaya isaga sida muslimiinta haduu gowraco way saa ku qoran meesha buuga qofka faraskiisa mata alaabtiisi baa ka dhacday isagoo faraskiisa fuushan ama qaansadisi baa ka dhacday ama warankiisa alaabtiisi baa ka dhacday iyadoo dagaal lagu jiro mid ka dambeeya oo lugaynayana uu jiro ka dambeeya oo alaabtii u soo qaadi waayo ka soo qaadi waayo waa la dilaya alaabta inaka alaabta ka dhacday waa la dilaya waxa shuruud saas oo sii waday oo ilaa waxay gaadhay dharkay gaadhay iyo sii wada wuxuu dharka wuxuu horta cuntada waa la wada cunayaa buu dadku ma kala laha darajo qofka u sareeyo qofka u hooseeya cuntada meel baa lagu wada cunay qofna qofka afka wax ku siisiin maaye qofka kale waa qof walba gacmihiisa ayuu ku cuni buuri la adoonsiga marka la adoonsanayo waxa jira dadka qaar kood dadku ay cuntada oo qofku adoonkiisu siisiinaya jira la isma siisiinaya wuxuu qofku isaga qof walba isaga ku cunaya dharka wuxuu yiri qof walba dharkiisa uu xidhaanaya ma maydhaya mana saaraya ilaa ay dhamaadaan waa xidhaanaya qofku dharka de maxaa wala meesha ay joogaan kulka dhulkan kulula yimaadaan laba gareeyay laakiin meesha ay joogaan qofku bustayaal iyo darbaale iyo isduldhigaya maba dhididayo qofkii waa maagtay -30 -20 kolka uu yar kulushay cadeed baa soo baxdo halka sheeda laga arko ayaa waxa noqonay ma aragtay balaashan iyo meelaha dad wad barafkii dhulka wali waa jira oo qabowgi marka hadal wuxuu laba maydhan maayo dharku waa inuu ku dul dhamaado qofka wax nijaas leeyahay ma jirto oo shay walba waa daahir wax uu nijaas ma jira waxa kale oo qaanuunka ku jira sanadkii mar oo ku qoran sanadkii mar waa in dawladdu dadka dawladda ku nool oo dhani gabdhahooda gashaantimaha boqorka waa inay soo tusaan soo isagu gabdho tuu doonayo uga la baxo wiilashiisana kuwa uu rabo ugu doono iyadna qaanuunka ku qoranta waxa soo dhan buu markaa ninkaas ayuu soo sameeyo ciidankana uu kala ratibay nin 10 xukuma nin 100 xukuma nin 200 xukuma nin kumayaal xukuma saa darajooyin buu kala sameeyay marka ninkii soo jaba mushkilad baa haysata ciidankiisa soo jabana waa in marka taliyihiisu uu soo diray buu rasuul مثلا سرقالك عيدن كاو غاميلي او جابay marka uu soo jabo hadii amar iyo wax laga kala fariyo sirgaalkii ka sareeyay wuxuu u dirayaa ciidanka ka ugu hooseeyo u dirayaa waxa kamid noqon kara amarkaas adigu isdilday mar hadii aad ma aragtay meeshaas aad waxba qaban kari weyd marka waa inuu fuliyaa qofkaas marka qabaa'ilkii tataarkii iyo mongooliyiinta loo oran jiray markuu sida ugu guuleystay qawaaniintana uu dajiyay iyo ummadihii la dariska marka ku bilaabay ummadda ugu horeeya dabku jiiri doonay waa China la darisay iyaga marka laakiin deyrkan weyn baa ka xigay deyrkan aad maqasheen gidaarka weyn China la sheego ayaa iyaga xaqooda ka xigay ma ceelin deyrkiina waa ka talaabeen oo way dhaafeen kolka Pekin oo magaalada ugu weyneyd ahayd waaga Pekin lama oran jirin bankiis yaxba la oran jiray magaceeda ilaa waxa ku noolaa 250 kun oo qof iyo markiiba galeen magaaladii waa isdifaacday iyagu markaa kuwani ma laha hububkan waaweyn markaa teknoolajiyada lagu dagaalamo manjaniiqi iyo waxyaabihii la jiiday madaafiicda u egaa iyo waxa ma laha waa askarta yaacaysa una seefta iyo leebkiya qaansada u wadata markay arkeen dabka la marsiiyay dhowr jeer iyadoo la tuulooyin badan oo China soo qabsadeen waxay ku yiraahdeen waxa sida loo sameeyana tusaydo oo sameeya idinkuna waa la sameeyay kolkaasay waliba ku sii dardareen maartay horumar aad u dheeraad ayay ku sii dareen magaaladii way baabiyeen maxaad maray 250 kun ay Pekin ku noolaa maalinta galeen wax ka noolaadeen biyaad u malaynaysaa 20 kun waxaan gaaray nin baa ka badbaaday
intii kale oo qofna isagu wuxuu leeyahay magaalada albaabkeeda ma la furo ma la sii galaya amarka uu bixinaya isagana ciidanka wata Genghis Khan baa wata magaalada qof nool yaanan ku arkin xayawaan nool yaanan ku arkin dhagax saaran yaanan arkin uu leeyahay ciidankiisuna waa magaalada intay joogtay in ku dhow dhagax saaran baa la markay magaaladii oo dhan dabka la suray dadkii oo dhan waa la wada gubay maxaabiistii meesha laga qaaday magaalooyinka kale loo sii kaxaystay marka 25 sanadood ayuu joogay laakiin waxyaabaha la yaab kale waxa kamid ah muddo sanad gudaheeda ayuu wixii Iiraan xagga ka xiga ku qabsaday sanadii 617 hijriyada ayuu wixii xagga ka xiga ku qabsaday dhulka uu isagu sanadka ku qabsanayo ummadihii ugu badnaa iyo dhulkii ugu ballaadhnaa adduunka waxa isagu mar qabsaday nin la oran jiray Alexander al-Maqdoni ama Alexander the Great la oran jiray oo Greek Macedonia ah laakiin imsu ku qabsaday wadaysa isagu 25 sanadood bay ku qaadatay isaga 25 sanadood 25 ka sanadood isagu de magaaladu qabsadana ma burburinaynin dad badanna ma leeynaynin wax fara badan oo dadka kamid ah dawusa sabanaya isagu كان مجال dhagax saaran magaalada ma jirtaba dadkii ama wuxuu qaxiyay oo magaalada ka cararay iyo wuxuu dilay iyo wuxuu adoon ka dhigo kolkay lacagtu ku yaraato ciidankii buu oranaya waa bal inta soo iibiye magaaladaas oo dhan magaalada Hiblaya dadka ku nool oo dhan ba iibiye wixii iib galaya oo kaxeeya gibigooda 25 sano kadib balaayada musiibada markay dadkaas ku noolaayeen ee muslimiin iyo buudiyiin iyo hindi iyo dad oo dhaniba ay ku gubteen dabka Genghis Khan uu dhintay laakiin ma laga nasari وسيدي نمديسي وطبري لو كتابكن قريه ياسق la yiraahdo aroortayda iyo qoysku waa in xafidaan buu horta korkayga ka qabanayaan dadka kale intuu guriga u yaal haba eegaan buu laakiin qoyskaygu waa inuu xafidaa isagu oo qofku ma loo baahna de wax kale marka saddex wiil buu ka tagay afar xafos xun la xafidayaan isagu kitaabkiisii ma mid dooshi Khan baa la oran jiray ama Jooji من جفتاي baa la oran jiray waa sidaas oo midna waxa la oran jiray oo kitaab markay ummadihii caadiga ahaa ee ilbaxnimada iyo wax lahaayay kolka dulmi sameeyaan dhibaato sameeyaan waxba Ilaahay ku saleeyo ummad kale Ilaahay soo saaray adduunku cidla ma noqonayo waa la isdhameystirayaa mar walba oo kitaab baa kale saddexaad la oran jiray kalena tooli ama tooli baa la oran jiray saddexda hore isku hooyay ahaayeen ka dambe tooli la yiraahdo hooyo gaar ah dhashay saddexdii hore uu dawladiisna u kala qaybiyay oo kale ma jigmeeyo wuxuu yiri maanta walaalada mid la taliyo noqon ku yiri hada xukunka xukumo leedahay marka odaygu wuxuu amar ku bixiyaa dil diidana inankiisa iyo inantiisa iyo islaantiisa iyo dad kale waa isku mid qofna amarkiisa ma diidi karo marka wuxuu siiyay isagu wuxuu yiri adigu adaa dhaxalkii dawladda baa la yiri وكان أنا قلت أنت هذيك دخل يبود شفتاي روح كوري دولك بلاد ما وراء نهر الليل هذا واتشاينا إيو أوزباكستان إيو تاجكستان إيو دولك هاسودا أنا دولك هاسود ليه يبود جورجيا روح كوري جورجيا إيو دولك ريكو يالان إيو إيران إيو إلى روش كل حلا يقبض يقول هذا كنا وإنتاس كيا أفراد يسقى حمل سنين وصدق هذا هو إسلام واحد شيء لورن جري أبو بولي بنت تكتي لورن جري سهويري لورن جري هذا شو salaadiinta waaweyn ee Mongoliinta nin kamid ah oo dhalay marka oday sultaan oo salaadiintu waxay kamid ahaayeen majliskiisa kamid ahaan jireen isaga had iyo jeer marka odayga sultaanka laftiisu tixgelin gaar ah ayuu siinaya sidaasay marka yani waxaan hadda sheekadan ugu noqonay oo aan tataarkan u sheegaynaa wax kale ma aha Sayfuddin Qudus waxa soo wajahayay waa dawladda inta la ee adduunkii kale oo dhan soo baabiisay iyo isagii baa isku soo baxaya oo ku yari waliba uu ku magacaamiyay inuu yahay xaakimkii dawladda inuu yahay marka isagii iyo dawladdaasi siday isaga hor yimaadaan insha Allah maalinta jimcaha ayaynu bilaabi doonaa wabillahi tawfiiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh